السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحت بان idin rajaynaya iyo caafimaad taama muuqaalka insha Allah waxaynu ku soo qaadanaynaa haweenka isku muda contraceptive injection wa haween isku muda iraab ama dawooyin iraab ah la qaato oo lagaga hortago uurka. dawooyinkaasi dhibaatooyin aad u halis badan baa ka dhasha. haweenaydaasi markay dawada isku muddo dawadaas waxa ay ka samaysan tahay hormoon la yiraahdo progesterone oo la raacinayo qulqulka dhiigga. markaas waxa uu samaynayaa inuu qabto samaysanka ama abuurista uu samaysmayo uurku. laakiin maxaa ka dhasha? dhibaatooyin aad u culus baa ka dhasha. dhibaatooyinkaasi waxa ay keenaan inhibitionka lagu samaynayo uurka ama uur samaysanka ee kuxanta lagu dilayaa marka dambe inuu khalkhaliyo hormoonadeeda oo hormoonkii estrogen iyo guud ahaanba hormoonadii dhinaca haweenka inuu khalkhal galiyo oo taasina ay keento haweenaydii inay si toos ah u heli weydo dareenka hamada ama kacsiga caadada iyo sidoo kale uurqaadka intaba. dhinaca kale waxa ku yimaada haweenayda jir ahaan inay isbedesho oo ama ay cayisho oo cayil saayid u fuulo ama inay dhuubato si saayida ay u jirgodo u dhuubato. dhinaca kale haweenayda waxa ku yimaada haweenka inta badan dawooyinka qaata in ay dhashaba ka guurto oo ay dhali weydo iyo inay caadaduba ka guurto oo ay caado heli weydo iyo sidoo kale inay caadadu markaas ay ka khalkhasho oo caadadu marna dub ay ugu soo ay uga dhacdo marna hore ay ugu soo dhacdo mararka qaar inuu dhiiguba iska taagi waayo. dhibaatooyinka aad ka waaweyn baa laga dhaxlaa. haddaba haweenka inta badan caadaysta inay si toos ah isku mudaan markasta waxa halis ay ugu jiraan arrimahan inay wajahaan uurka. haweenaydu qaababka ugu sahlan ay kaga hortagi karto waxa kamid ah haddii ay dhashay inaanay markaa naas nuujinta ay samayso. taas ayaana ta ugu habboon ee caafimaadka haweenayda iyo dareenkeeda iyo hormoonadeeda iyo guud ahaanba jidhkeedu uu ku badbaadi kara ama uu sayfka ku yahay. laakiin dawooyinka kuwa afka laga qaatay tabletka kuwa la isku muday injectionka iyo kuwa kale iyaguna saameeya uurka intuba inay khatar ku yihiin mustaqbalka haweenayda caafimaadkeeda iyo guud ahaanba dareenkeeda iyo hormoonada oo haddii ay khalkhalaan sida loo saxa ay waqti dheer u baahantahay ama ay u baahan tahay daaweyn kale iyo xaalad kale oo runtii aad u adag. intaasaynu ku soo ururaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.